بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan doonay insha Allah inaan in yar idin iftiimiyo waxa loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammad. marka doonaysid inaad xareyso shaqo oo qaran jabis la soo geliyo sidan baad u maraysaa dadka qaar baan fahmaynin waxaad soo kaxsanaysaa waxa loo yaqaano Chrome-ka aad ku dhufanaysaa marka soo qora halka aad ku qoraysaa qaran jabis baad ku qoraysaa qaran jabis baad ku qoraysaa qaran marka inter baad siinaysaa deetana marka inter taado marka saa qaran jabis ku soo baxdo waxa ku soo baxaya shaqooyinkii la soo galiyay ayaa ku soo baxaya shaqooyinkaas marka ku soo baxaan waxaad sameynaysaa shaqada marka aad doonaysid inaad ku dhufato ayaad waxaad yeelaysaa Allahumma salli ala Muhammad imika tusaale ahaan waxaan doonay shaqo UN inaan raadiyo badanaa UN way ka duwan tahay marka la xareynayo system-kooda xogaa carrier bay leeyihiin carrier portal bay leeyihiin sometimes shaqada tusaale ahaan waxaan doonayaa hay'adda loo yaqaano FAO oo kale FAO baan rabaa inaan 7 boos bay xayeysiinaysaa waxaana shaqadan soo xayeysiiyay 20kii bisha marka sample baad siinaysaa tusaale ahaan shaqadaas aad doonaysaa inaad xareyso CV ma qaadaysid oo ma geynaysid xafiiskooda geynaysid laakiinse waxaad yeelaysaa Allahumma salli ala Muhammad waad ku dhufanaysaa FAO waad ku dhufanaysaa aykan keer waad iska xirisaa waxyaabaha waad iska xirisaa marka saa ku soo baxdo waxa ku soo baxaysaa FAO shaqooyinka todobada position bay rabaan marka waxay kala yihiin bay sii sheegayaan food and organization waxay rabtaa markaa booskaas rabtaa oo hoos baan soconaya shaqada markaa emergency smart emergency program senior kaasaan rabaa inaan xareeyo بعدين markaa shaqada ayaan rabaa inaan apply gareeyo markaa shaqada koobaad waa emergency program senior support shaqadaas waa grade 6 waa baydhaba tusaale ahaan maxay kala xayeysiiyeen civil engineer bay soo xayeysiiyeen waxay soo xayeysiiyeen nutrition ka ay soo xayeysiiyeen marka for example oo kale waxaan xareynayaa tan baa ma ka helay emergency ka helay apply baan leeyahay markaad apply taado waxa ku soo baxaysa shaqada laftigeedii aad ku dhufatay baa ku soo baxaysa iyadoo faahfaahsan shaqadaas waxay tahay emergency wuxuu yahay xilliga dhacayso waxyaabahaas oo kale job title-kii non staff opportunity-ga saa u soco waa akhrisanaysaa marka akhrisasho qofku waa inuu akhriyaa halka intaan shaqada xareyn ka hor waxaan waa inuu akhriyaa first akhris badan ma kaaga maanta waxaan markaa inaan akhrido بعدين ساعة soconaysaa marka dambe waxaad sameynaysaa apply baa halka qorantay baad hoose FAO is a non smoking environment waa wacyigelin yar sameynayaan qofka sigaarka laguma dhex cabi karo meesha marka apply baan leeyahay macnaheedu ma sigaarka lagu diiday laakiin wax weeyaan waa gudaheeda lagu cabi karo apply baad siinaysaa marka apply siiso waxa ku soo baxaysa portal-kan baa ku soo baxay markaa oo qaybta loo yaqaano FAO organization carrier section baa ku soo baxaysa oo markaa habka shaqada iyo waxa ciwaankaas ku soo baxaya oo macnaha waxay leeyihiin meel wax laga xareeyay leeyihiin badanaa FAO-du kadib halka markaa waxaad sameynaysaa welcome uu ku yiri waa halkii aad ka gelay shaqada marka waxaad sameynaysaa apply online baa ku dhufanaysaa marka apply online ku dhufato waxa ku soo baxaysa markaa qaybtan login waxa weeyaan qofka haduu hore u lahaa account qofka hore account u lahaa wuxuu simple sameynayaa uu gelayaa wuxuu ku dhufanayaa halkan tusaale ahaan kale imika halkan oo kale waxa ku jira anaa hore account kan u lahaa tusaale ahaan waka dad baan gelinayaa ama hayaankaasaan gelinayaa hayaankaasaan gelinayaa login baan leeyahay anigu already uu ku sii jiraa
marka dib baa u noqonaya waxaan sameynayaa waxaan rabaa inaan soo bilaabo mid cusub marka qofkii ku cusub ee aan horey uga mid ahayn tusaale ahaan oo kale dadka maxaa la yihahdaa hore shaqada uga xareeyo inta wuxuu ku dhufanayaa new username waxaa sameynaysaa waa saa ku dhufato waad ku dhufanaysaa markaad new user ku dhufato waxaa kusoo baxaysaa halkan privacy agreement qofkan heshiis baa laga rabaa ee qodobada akhrido faw iyo policygeeda waxyaabaha inaad seexdo marka waad seexaysaa waxaad leedahay waxyaabaha sheegtayna maxaa la yihahdaa responsibilitygiina ah iyo maxaa la yihahdaa allahuma salli calaa maxamed wixii policygiina insha allah waan accept gareeyey accept waad ku dhufanaysaa markaad accept ku dhufato waxaa kusoo baxaysaa new user registration baa kusoo baxaysaa marka halkaa waxaad gelinaysaa magac baad gelinaysaa ama waxaad gelinaysaaba halkaa markaa bartaas insha allah waan kaga hadhay anigu waxaan doonaya inaad bartaa magacaagaad gelinaysaa soo magaca maaha cafwan waxaad gelinaysaa usernamekaaga oo ah emailkaad gelinaysaa password baad samaysanaysaa marka waxaad tusaale ahaan kale waxaan gelinayaaba ciwaankaasaan gelinayaa hayaan qani hotmail.com kaasaan gelinayaa passwordka badanaa passwordkaas waxaad oran kartaa suggest adigu midii door baa kartaa midii door markaa saa mid ku dooraya automatically kaasoo ku door tusaale ahaan kale kaasoo use strong password kaasoo dooranaysaa oo kaa saa kuu dooray password markaa adoo dooran kartaa dad u baahan tahay halkan waxaan kusoo celinaya mar labaad emailkii kadib waxaan leedahay register marka waxaa kusoo baxaysaa allahuma salli calaa maxamed waxaa kusoo baxaysa markaa wataa shaqadii markaas ku bilaabaysa marka foomka baad buuxinaysaa foomka wuxuu ka kooban yahay qayb loo yaqaano personal information qayb loo yaqaano education oo tacliintaadi baa laga hadlaya marka adigu buuxin maysid mar kastoo aad kaa dhamaystirto waa mar kasta oo aad kan buu automatic u gudbaya haddana soco kaa markaad personal information kaad dhamaystirto automatically waxaad u gudbaysaa educationka markaad dhamaystirto ilaa uu kusii daayo computerku ama sida kusii daayo waxba kuu suura geli maayaan waxaa ku xigaya employment history xagga kasoo shaqaysay certification and licenses waxyaabaad soo qaadatay iyo shahaadooyinkaagii additional information warbixin dheeriya attachment faylasha lagu dhejinayo waxaa ka mid ah shahaadooyinkaagii iyo cv-gaagii questions haddii su-aal lagu weydiinayo review baalkaaga dib u qiimee ama review garee oo soo check garee kadibna gudbi intaasaa ugu muhiimsan marka insha allah haddii ilaah ka dhigo waxaan idinka rajeynaya insha allahu inaad qaabkaa isticmaashaan qof walba qaabkan isticmaal haddii ilaah ka dhigo marka aad baan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu